One by one, they arrived for a summit that had more in symbolism than in substance. East African leaders are eager to show the world that Somalia is on the road to recovery. This summit is an attestation. It's the pinnacle of the fact that Somalia is now ready to be a player in the scenery of other sovereign states, not only in the IGA region, in the African continent, but the global community now. East African nations have in the past decade invested heavily in bringing peace to Somalia. Uganda, Djibouti, Ethiopia and Kenya provide the majority of troops to the African Union peacekeeping mission in Somalia, or AMISOM. East African leaders promised to continue their support for securing Somalia. They also agreed to help the Somali government rebuild a strong national army and called on the international community to fund this effort. Foreign investors, development partners, let us support this government, let us support the people of Somalia, let us support them in their efforts to rebuild what was once a great country. It's the promise of further help in the security sector that has the Somali president excited. Building a robust and reliable national army that can take the responsibility of the security in Somalia at the earliest possible time was the focus at this time. There were concerns ahead of the summit that Al-Shabaab fighters who had recently carried out attacks in the capital might disrupt the summit. And government forces stepped up security. They closed roads near the venue. Exit and entry into the city have been restricted, and public vehicles diverted from roads passing near the presidential palace. And after a 72-hour lockdown of their city, the end of the summit will likely come as a relief to many here. Mohammed Adu, Al Jazeera, Mogadishu, Somalia. مرشح مدحوينها على أمريكا نوسمي قدرة وناكسن يمرتقلينتا وناكسن مركات بنقوم هاد علنا يا ندك الآن وهل أرمى كهلا يا أرنتا كهلا يحاول شعب كان مقدشو دقن دبعت تذا أفرتي مع الموت اللي صورنا في الوهي أفرتي مع الموت اللي صورنا في دولد وحي حنبتي أما أي جوجسي الصعد كيدتك يا بدا عدة. dhinaca kale mas'uuliyiinta ku midoobay isbaheysiga isbadal sameynta Soomaaliya ayaa socdaal dheer oo ay ku mareen qaybo kamid ah wadooyinka Muqdisho kuwa oo inta badan xiran waxayna ka hadleen xirnaanshaha xilligan wadooyinka Muqdisho iyagoona inta ku daray in xilligan wadooyinka magaalada Muqdisho in shacabka laga xiray aysan habooneen in maanta aan joogno taalada Dagijason oo aan sheegayno in magaalada Muqdisho ayaamaan ay xirnayd dhibaato haysata in sha Allah taala aan rajaynayno in loo furo wadooyinka loo furo si iyo mataqaana ay ganacsiga u furmaan la soo dhaafay wadooyinka laga xiray isbahaysiga isbadal sameynta musharaxiinta iyo madaxda xisbiyada siyaasadda iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed mid kale ku jiraan waxaan ku soo baxnay oo u soo soconay oo banaanka u soo istaagnay oo darjika daasan u nimid inaan la dareen la wadaagno shacabka Soomaaliyeed la safarno wadooyinka xiran in loo furaan rabnaa marmarsiyo ma aha igad shirkeeda madaxweynaha marka aqbalayno ku marsiyo igad shirkeeda xalani agtiisu ka dhacaya dadka wadooyinka loo furo hadii kale timiri waxa la yiri lafa ku jirta diidmadaas madaxweynaha wuxuu diidan yahay muddadiisii aa dhamaatay mudaharaadku diidan yahay dacwada aan maxkamadda geedo diidan yahay wadooyinka waxa loo xiray waxa weeyaan in shacabku uu tashado oo ka tashado waxa mustaqbalku noqonayo maadaama caawito xasan sheekh xilkii ka dhamaaday waxaan soo jeedinaynaa annagoo isku duuban oo ah isbahaysiga isbadal doonka shacabka Soomaaliyeedna taageero ka helayna in dhaqso loo furo wadooyinkan la xiran karaan dadkii maqaayadaha lahaa dadkii dukaamada lahaa dadkii keenayay maanta moos baa laga waayay magaalada shalay moos baa laga waayay waxa loo waayayna waxa weeye wadooyinka xiran marka hay'adaha nabadgelyada waxaan ugu baaqaynaa inaanay maqal amarka lagu cadaadinayo ummadda Soomaaliyeed oo ay furaan wadooyinka. Zainab Maxamed Aadan, Somali Cable, magaalada Muqdisho.